hadlays gabadha $5 inay ku filneed $60 eh $60 ayay tiyan ku sheegay saaxib wax badan ayaad igu leedahay markaasi ma markale ay ku siinahay kul wala saaxib ay beendo markale يا قرن واي صاحب ما سمعنيسا بلانتي لا ولا صاحب نيو maxaad ka hadlaysaa saaxib ma xasuustaa balantaada iga qaaday 5 sano ka hor haddana daqiiqadii la soo dhaafay balan ayaa iga qaaday maalin kasto next time maxaa ismooday saaxib balanta la ku socdaano suqlaadi maad fiyooda hayle waa inaan ku kabayaa ha saaxib san ayaan ku fiyooday waxaad sheegayso dhan aniga ma xasuustiniyo way dhacdaa fiir faraxso binaadinimada qiimay binaadinkan wuxuu iloobi karaa anagana laga yaabo inaan ilooway aan soo bari saaxib markaad balanta qaadaysay waxay u dhahday adoo caafimaad leh next time ma ahan inaad xabad waqtiga ugu socda noloshaadana waa sidii wax isbedel kama muuqdo ha saaxib isbedel yar ayaa dhacay marka hore shaqada xagga hadin kaaga waran saaxib waa ogtahay in la dilacsiiyay inkastoo lacag lagu daran office ayaan leeyahay office-ka daaqad ma lahan waxna ma lahan laakiin lacagtada waan ku siinaa adiga isdeji oo kaliya saaxib adiga isdegeyso wax macquul gal ah ii sheeg mar kasta markaan wax ku weydiiyo shaqadaada arrimaheeda maxaa aaga heshaa kaama yeelo midaas ee baaqiida isay marka hadda waxaad rabtaa saaxiibka qaaliga inaad iska dishay teeda kale habeenta maxaa samee rabtaa beri waa arbaco waa maalintii lis casuumay ilan zab ayaa jirtay ka fikir mar waxaad u baahan tahay saaxiib zabtaas ku cun sooma umaleynaya qof zabtaas kaalmeela inaan qaaday asoo ma sheegin dhan oo dhan marka waxaan oo dhan waalidan oo dhan aan iska ilowno teeda kale ma ka fikirtay arrimahan inaan jeel ku aadi karo shit xabsi shit Somali inaad ilowsan tahay waxaa ka hadlaysaa askar iyo xabsi iyo waxbaaris shit hadda ayaa fahamtay soomaan inaad dish darteeda ma meeshaan oo dhan oo baakan karin qofna inta ma joogo si fudud ayaan kugu dili karaa waa kuma leey moogta taas sababta meeshaan cidlada gaarigaad ugu baakan karin saaxiib aad iyo aad ayaad u taqaanaa meelaha dibadooda waa shaqayn soo maaha aad iyo aad way shaqaynay hashaan qorshe inay hashi ugu muhiimsanay tahay saaxiibo qaali ayaan ahayn laakiin hadda uma muuqato inaan saaxiibtinimada qaaliga hore u lahayn inaan leenahay muhiimadda waxay tahay mataqaanaa maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan kala bartay saaxiibada wajiyada ay leeyihiin berito markaan kasoo kaco mataqaanaa waxaan isku dayayaa nolosheeda sida waxaan ugu bedeli lahaa saas ma og tahay midaas taasi waa arrin wanaagsan saas ayaa iila habboon anba waxaan gacanta ku jira maxaa waay igara lahaa hadda uma sheegi karo qurigan siduu gacanteeda ku soo galay waxaanba aad iyo aad ugu faraxsanahay waxyaabaha noocan inay dhacaan sababtoo ah saaxiibtinimada qaali lagu sheegay waa intaan أنا هانتي مسؤولية وين أيان السار هاي وايو بلن أيان كاقادي هذا كله كبرنا مدة سيد كوسح سنتهاي وكم سنتهاي والله شاد السيدي واي واحد بدل كمان موقده اسكو شقادي لك شقيسا غوريغي دنا كبقسنا ولد دغنتهاي عادي واي اسكا دعدا والله شاد السيدي أيان تهاي فرح سنان كرتا استيو تاسنا waa iska caadi waan ku fahmi karaa waan ogahay taasi saaxiib taasna waa runta ogaw maya saaxiib aniga ma aha qof siisan waa adiga maya saaxiib aniga ayaa arrin doqonnimo ah sameeyey mana ahan marmarsiinya inaan ku sameeyo midaasi maxaa yeelay arrimo badan ayaan ku leeyahay hadda waxaan kaa codsan lahaa inaad iska geedisho maxaan ku sameeyaa hadda waaba ka caajisa bedelmada anaaba raboga in la ii qaarijiyo gacmahay dareenkii dilmadaaba ka baxeeno waqtigii gacmahay dareenka dilmada ku jira waa la mooday teeda kale waa kaaga mahad celinaya waxaa ku hadashay arrin fiican oo saaxiibada isku waaniya taas ayaa i qancisay marka ma rabo ciyaaraanka inaan sameeyo fikrad kale waa inaan laakiin maxaa ka wadaa fikrad kale inaan ula imaado micnahe marka hore waxaan kuu sheegi karaa aad iyo aad waa ii sheegi kartaa maadaama aan go'aansaday inaan adi hadda ku dilin fikrad waxaa igu soo dhacday inaan qof kala dilo midaas waa mid aan diidaya aniga sidaad ogtahayba taasna waa arrin khatar ah maxaa rabtaa inaad ruux kala disho waxaan u malaynaa maskaxdeeda inay ku abuuratay wadada maskaxdeeda aaga baabina karano waa inaan qof dilaa saaxiib arrintaas waa arrin cabsi badan saxan sameey ma garanayo laakiin gacmaha ayaa calaamoona haye kuma diidin midaas laakiin meesha waxay tahay haddii aan ku ogolaado inaad i disho ma laga yaabo ruux kale inaad u malaynayo inaan ballan qaadi karo midaas taasi waa waali ogaawade ma aragtaa midaas waa midda saaxiibtinimadeena qaaliga ka dilinaysa saaxiib waxaad ogaataa wada socodkaaga anuu i dambeeyena ogtahay saaxiib hadda inay iga hayso booliskan aad ugu sheego haddii baa wax dilayso daraskana waa dila doontaa soo maa
maaragta waalidii waa wadaagtay hadda waxay u tahay inaad kor aado dad ku soo laayso meelahaas korkaas jooga maaragta hadda waan qataaranahay ani dhammaan isfiiltay u kacsan waayahay maxaan sameynaa waryaas haye waatana u qaado صاحب نولشيدا يا بدبادسي قفكاس ay xabad koro yifiro manoli hay aku dayka صاحب shimiteero fiican u jiito yifiro fiican wali man صاحب waroga inay tan dhici doonto ka waran laakiin qofkaas laakiin haween صاحب isbadbaadin ayay naga waa runta ha uu ku dilray marka ana dilay ka wala biliis wax bad jeclaaysa tare kuma aanan dilin ninka nacam aniga inaan dhinto maro hada iska dili doon ha anigana ma doonayo marna inaan qof kala dilo saas la iga dhib صاحب beel way had hadda waa isku fiicannahay wow hadda ina inta ka tagna soo ma habboona naga dhaqaaji meeshan laga yaabo inuu qof meelaha naga taabanayo dabcan naga dhaqaaji waayahay boolisteeda aan qaatay balso saaxiib waa inaan boolista wargelinaa taas ayaa wanaagsan waa inaan boolista wargelinaa waxaan samaynaynaa ma garanay arrimahaynoo dhan u sheegayno boolis waayahay waa sida sheegtay helo qaybta booliska miya waxaan dilay tuug cunugeys waxaan joognaa garaadkii bakaaraha ku yaal sii joogaynaa meesha naftirkeeda ma sii sugnaa mise waa iska sii joogaynaa dhib malaha hay waan sii joogaynaa aragti dambe quruxdan bahdeen ragga uu qaybsan inanka quustu makaygu qaxee quruxdan bahdeen ragga uu qaybsan inanka quustu makaygu qaxee